subscribe, like, comment, share this channel Human Lyrics. haddii uu kusoo gaaro fiidiyoyaal cusub aan soo dhigaynaa, si uu kusoo gaaro fiidiyoyaashaan kambalelkana taawo, subscribe-ka, like-ga anaga hasdin, share-ka. maanta barnaamijkeena waxaa u hadli doonaa 6 waxyaabood ay nimanka ku neceb yihiin naagahooda. soo dhawaada nala gala barnaamijkeena. soo dhawaada. Number 1, naagta oo ku ciyaarta mobilkeeda waqtiga uu la hadlayo ninkeeda. Macnaha taasi warka ninkeeda kuma socdo, isla markii wuxuu dareemaa ninka inaysan naagtu ahayn naag fiican. Taasi waxay keentaa inuu ninku furo naagta, sababtoo ah naaguhu waxa ay mararka qaar sameeyaan ninka hadalkooda ma daneeyaan. Sababtaasina wuxuu isdhahaa ninkan naagtan ma ku rabto. Mararka qaar naaguhu ma daneeyaan ninkooda. Marka naagaha daraasaad badan oo la sameeyay waxyaabaha lagu furo naagaha inay ka mid tahay tan. Nambarka 2, ninka oo naagtiisa ku dhaho joog xaafadda, ayna ay ku dhahdo waan baxayaa. Taasina macnaheedu waa ninka amarkiisa ayay jebisay naagta, waxaana imaan doono dagaal ay neceb uu u qabo naagtiisa. Sababtoo ah naagaha qaar mararka qaar waxay rabaan inay meel kale iska aastaan, isigana wuxuu isdhahaa naagtaadii ka aasan meel kale, warka ayay ka diidaysaa. saas awgeed waxyaabo badan ayaa imaan karo oo furiin ka mid yahay, oo dil ka imaan karo ninka. Number 3, naagta oo gurigeeda aanan si wanaagsan u hagaajin, kadib wuxuu dareemaa naagtan inay tahay naag caajis ah oo aanan daneynin isaga iyo gurigaba. Sababtoo ah naagaha qaar waxay jecel yihiin inay guriga ka tagtagaan. Waxaa daraasad weyn oo la sameeyay 2019 waxaa lagu ogaaday inay naagaha 10 daqiiqo guriga iskaga joogaan kabacdina iska baxaan. Taasi nimanka muddo u qaadan karaan sida la baaray aan ognahay. Nambarka 4, naagta oo ka shakisa isaga inay is dhahdo wuxuu jecel yahay naago kale, kadibna waqti kasta ay ku qayliso. Wuxuu dareemaa ninka inuu kalsooni ka haysan xagga naagtiisa ah, maxaa yeelay wuxuu aadaa maalin kasta waxay u maleysaa inuu naago shukaansado. Markii uu guriga soo galona waa ay ku qaylisaa. Sababtaas ayaa keeni karto in uu ninka furo haddii ay macquul tahay. Number 5, naagta oo mar waliba ka maseerta naagaha kale, waxayna rabtaa inay sameyso naagaha kale waxa ay sameeyeen, isigana ninku ma ogolo. Sababtoo ah waxyaabo badan ayaa ka imaan kara oo dhibaato ah. Haddii kalena sababtoo ah ma awoodo lacag uu ka baxsho. Sababtaas ayaa keeni karto ninka inuu la dagaalo naagtiisa. Mararka qaar naagaha waxay caadeystaan inay ninka ku xujiyaan waxyaabo uu haysan, isigana waxaa soo galaya niyadiisa inuu furo. Markaana nambarka 6, naagta oo aanan daryeelin carruurta. Taasina waxay keentaa dagaal aad u weyn oo u dhexeeya ninka iyo naagta. Inta badan naaguhu ma daneeyaan carruurta. Waa wax la baaray oo aad iyo aad 2019 loo baaray. Sababtoo ah naaguhu waxay jecel yihiin inay mararka qaar iska ciyaaraan, mobil iska isticmaalaan, iska wareegaan, nimankana wuu dul qaadan karaan. Saas awgeed ayaa keeno in lala dagaalo. Please haddii aad ku cusub tahay channel-kan, saar subscribe, like si uu kuu soo gaaro wax kasta oo soo gelino. Hoosna ku soo qor comment-iga waxyaabaha aan ka hadli doono, soo dalbada taageerayaashayda. waxyaabaha badanka aan ka hadalno.
oo inaan ka hadalno rabtiin kusoo qoro hoos commentiga iyo waxyaabo badan si aa